الرحمن الرحيم horta de waxa iiga baxay waa waxa dadka Soomaaliyeed oo dhan intii arrinka xodogaalka ama wax garanaysa uga baxayso in dalka saaka uu ka badbaaday iyo xalay afgambi ku salaysan fikir kaliya talisnimo dalkuna af libaax Ilaahay uu ku soo ceshay tanna aysan ahayn markii ugu horeysay oo farmaajo isku dayo inuu dalka inqilaabo ama wada qaldan u aadiyo hadda xaalku wax silan yahay laakiin problemkii wali waa jira oo farmaajo wali fil Soomaaliya ku jira waxaan leenahay wax hadda ka dambeeya atraaf farmaajo iyo damaciisa ka suurtagali kara waa loo jeedaa waxa la Soomaaliyeed isku timaado inay ka tashatay go'aan midkii la aqoon jirin madaan inay ka qaadato waayahay khilaafku wuxuu u muuqdaa inuu wajiib badan yeeshay sida kula muuqdaa maxaa si talaabooyin dheeraad ah oo laga filan karaa labadooda wallahi meeshan Soomaali iyo farmaajo iskhilaafsan Rooble iyo farmaajo isma khilaafsana khilaafku wuxuu ku salaysan yahay Rooble wuxuu rabaa doorasho musuqmaasuq lahayn oo aan lafduubaynin oo sharni leeyahay usan ahayn oo cadaalada dalkaana si nabada doorashaas inuu ku dhacdo xukunkana si nabada lagu kala wareego ayuu rabaa farmaajina wuxuu rabaa doorasho asaga yahay qof kula tartamaysan ay si jirin xildhibaano ayagoo doorasho giran la sii garanayo yaani oo askaru dooranayso oo qabaylkooda aan laga tala gelinin oo aan marnaba aan loo ogolayn fursad in ay tartamaan inay helaan saas uu rabaa hadii kale lagu kala tago wadanka oo micnaheedu tahay saarba hadaan yeelaynin dalka waa dumina wax laga dhaxlaayo oo dawladnimada ma jirto marka meesha sideeda wax la yiraahdo Rooble iyo farmaajo iskhilaafsan ma taalo farmaajo oo dambiile oo dalkan 2000 April 2021 kiina inqilaab isku dayo extension aaday xoog looga dhigay laga badbaadiyay markaasna ay ahayd in bafilada laga saaro because wax sharciga iyo dastuurka iyo waxa Soomaaliya ku wada joogto aan hayno ku dhaqaaqay dabeeciyana qofka haduu inqilaab iyo wax sharci ka baxsan asagoo dalka ugu sareeya ama mas'uuliyad hay oo ku dhaqaaqo oo inta laab sharci laga qaado oo ciqaab la kasi karo ama u qalanta talaabooyinka uu qaaday loo qaaday hadda nasiib daro waa laga soo gudbay mar labaad isku day haddana inuu dalkii dib xoog iyo jujub ugu qabsado Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble maanta uu hadlay waxyaabo ka hadlay waxa kamid ahayd in madaxweyne farmaajo damac boob doorasho inuu ku jiro markii hore siyaasiyiin iyo bulshada qaar badan ayaa aaminsanaa sidaas marka madaxweynaha ra'iisul wasaare la shaqeynayay hadii isku dhaceen yaa kale oo gabaad u noqon kara ay kula tahay wallahi meeshan hal shaqa wadankan taalo raas waxay tahay doorasho dalkan laga qabto sinna doona loo qabto shaqadaasna farmaajo waa ku fashilmay beesha caalamka iyo Soomaaliya oo dhan waxay ku wareejeen mas'uuliyadaas u dhiibeen Rooble farmaajo waxay ahayd inuu faraha kala baxo sida ra'iisul wasaare uu sheegay oo u dhaqmo sidii musharaxada kale kamid oo daneynaya xukunka wadanka inuu ku soo noqdo ama dib u hanto hadii laga waayo wax kale oo meeshan laga arko Soomaaliya oo dhan qaasata dadka Muqdisho jooga aba waxa la yiri maridaga Allah dago mar labaad istagana anaga dagay Rooble waa inuu ku daba faylaan wax kasta oo siyaasad iyo amni iyo dib u heshiisiin iyo doorashaan asaga loo daba fadhiisto farmaajana fursado la siiyay sida madaxweyne Xasan Sheikh uu sheegana dulqaadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ayuuna diyaarsan u qaatay madaxtooyada in laga saaro madaxweynenimada iyo madaxweyne aan hayna oo in laga waa in go'aankaas la qaato without farmaajo dalkan joogina waa in doorasho iyo wax kale laga fikiro inta farmaajo joogo gobolaha shiraano hal isku yimaado doorasho hal toosiyo xisaabtaas waa inay xirantaa maanta ciidamada la dulgeeyay xafiiskii ra'iisul wasaaraha uu ku shaqeynayay ra'iisul wasaaraha hadalkiisana waxa kamid ahayd in taliyaasha ciidamada inuu amray inay asaga ka amar qaataan sidee wax u socdaan markaad eegto si toos ah Rooble mu hoos iman karaan taliyaasha ciidamada of course Rooble horta waa caretaker government macnaheedu waxay tahay waa dawlad xilgaarsiin oo shaqo mucayyima oo doorasho liiga qabanaysa wax kasta oo dalkan ka jiro awood ama dhaqaalaha ama ciidan ama siyaasadana waa inuu adeegaan cid doorashadaas mas'uulka ka ay hogaaminayso wax la yiraahdo dalkan madaxweyne kama jiro xukuumad xilgaarsiin ka jirta haddana waxa la rabaa si mugdigaas loo saaro wax kasta in la joojiyo madaxweynaha ii sheegay laga saaro meesha ra'iisul wasaaraha hadduu doorasho qabanayo ama cid kale ay qabanayso ayadoo madax banaan
oo aan gadaashooda xabada ku soo dhacayn oo aan walwal inqilaab qabin oo aan walwal amaan darro qabin oo walwal faragelin ninka awood badan aysan qabin doorashadii iyadoo xura oo xalaala oo heshiis lagu yahay farmaajina ka maqayaan la qabto dalku wuxuu ku jiraa sidaan ogna xilli doorasho marka ma kula tahay in madaxweyne farmaajo intuu madaxtooyada hadda joogo in ra'iisul wasaaruhu awood u yeelan karo in uu sii wado daadiinta doorashada ra'iisul wasaaruhu wuxuu awood u yeeshay baahnimada farmaajo dalka inuu ka badbaadiyo dhowr inqilaab uu isku dayo inuu ka badbaadiyo doorashadana waa hogaami karaa anigana waa ku sheegaba wax kasta waa la baakin gareynaa meelaa la iskaga tiirinaa farmaajo ama xoog ama xeel looga saaraa madaxtooyada kadib baa Soomaaliya isku imaanaysaa wixii shaqada doorashada ugu horeysana ayay ka tashanaysaa go'aan ka qaadanaysaa waayahay waxaan ognahay in magaalada Muqdisho xaalad adag ay gashay xilligii muddo kororsiga madaxweynaha 2 sano uu damacsanaa haddana waxa muuqata saasaan sidaas u eg marka maxaa farqiga u dhaxeeya isleedahay labada xilli horta waa isku mid mar waxay ahayd extension la diiday miiska wada hadalka iyo taandadii wada hadalka iyo doorasho in lagu soo noqdaa objective-ka ahaa kan laakiin waa in farmaajo baxo waayahay waxa kala dhantaalmay gudiyadii doorashada maamul goboleedyada qaarkood way ku kala aragtoon yihiin sidii hadda wax u socdaan farmaajo roob labadooda waxay kala iclaameen laba shir oo kala duwan marka Hirshabeelle iyo Galmudug wali ma aysan ka hadleen arrimahan maxaa isleedahay maxaa dib u dhigay sideedaba ninkii xaaladan cakiran ka aamusa waa nin farmaajo la jira ama waa nin aan astaahilin jagada iyo mas'uuliyadda oo hayo waxaan jeclahay inaan mararkaay inay Hirshabeelle mowqifkeeda cadeysay na sheegtay inay diyaar u tahay shirka ra'iisul wasaaruhu iclaamiyay in maxaan ku dhahay ka soo qayb galayso laakiin shirka la sheegay hadduu xitaa dhacayo waa mid go'aan dhammaystiran oo loo wada dhan yahay looga qaadanayo farmaajo meesha inuu ka baxo farmaajo marka uu baxay kadibna wixii kale oo howlaha waddankan u yaala jihayntiisa in farmaajo ka maqan meesha go'aankaas la qaato ugu dambeyn haddii sidan wax ku sii socdaan oo ra'iisul wasaaraha dhacdooyinkii maanta oo kala uu la kulmo maxaa ra'iisul wasaar Roble la gudboon ay kula tahay ra'iisul wasaar Roble waxa la gudboon sideedaba dagaal qabiil loogama tago dagaalka dalka lagu badbaadinayo oo hadda ugu horeyso in la dhicisay isku daygii guracnaa ay tahay inuu dhammaystiro farmaajo madaxtooyada in laga saaro dhammaan mas'uuliyaadka maaliyadda ammaanka siyaasadda iyo wax kasta oo taabanaya national sovereignty-ga ama siyaadada dalkana ra'iisul wasaare waa inuu la wareego shirweyne Soomaaliyeed oo mucaarad iyo muxaafid iyo dawlad goboleed oo qabto sidan aan sheegnayna waa in uu dhahaa farmaajo meeshan joogo fil Soomaaliya ku jira aniga nin gacan gadaalka cabsanaysa hore wax kama goyso farmaajo dalkan joogo doorasho kama qaban karo ee farmaajo hal saaro kadibna doorashada aan soo jeesano niga hal shaqo u taal aw doorasho u taalay hadda shaqada u taal waa inuu saytaas farmaajo ka saaro